qaraxan ayaa ahaa mid loo adeegsaday gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa waxa uu ka dhacay isgoyska X control afgooye ee magaalada Muqdisho xilliga uu qaraxan dhacayay ayaa waxa uu isgoysku ahaa mid mashquul badan uu ka jiray wadadan waxa isticmaalayay dadweyne u socday shaqooyinkoodii ardayda wax ka baratay jaamacadaha dalka oo waqtigaasi ku rajaweynaa inay soo dhameystaan ujeedkooda ilaa iyo hadda dadka ku geeriyooday qaraxan ayaa lagu qiyaasayaa ku dhawaad 60 ruux halka dhaawacyaduna ay ku dhow yihiin 90 ciidamada ammaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dadkii qaraxan waxyeeladu ka soo gaartay u sameeyay gurmad dad gureyn ah iyagoo dhaawacyada la geynayay isbitaalada caasimadda Abdullahi Maxamuud Cali oo kamid ah dadkii goobjoogayaasha ahaa ayaa waxa uu Shabeelle ugu waramay waxyaabaha uu indhihiisa ku arkay kahor inta uu qaraxan dhicin sida uu ahaa isgoyskan waxa weeye waa soo kacay wajigaan mayrtay horay baan u soo dhaqaaqay anigu waan soo dhaqaaqay waxaan rabay inaan meesha u doonto gabdhaha shaaha ka cabi jiray aan meeshaan marayna wixii baa kacay dhayno aha wataas la sheegay 70 qof baan anigu arko wax ka geeyay 70 waa ka ya taasna ma xisaabi karo waxa weeye hadeertaas meyd baa wuxuu yaalaa meelan dhaweyn oo ku soo arka anigu dad meeyda go'i macnaha qof go'i aan waxaan ku soo arkay meel 1 kiiloomitir iyo barnoo jirta isgoyskan waxa weeye bini aadam makhluuq ilaahay baa dhoobnaa wixii dhoobnaana waxba laga ma arko waa dhamaade waxa la wixii dhoobnaa wax yar baa ka oo ilaahay uu bixisi ku bixi dad waxaan arnaa wax kale iska farfadhiyaan waxba gaarin aan waxaan ku gabaday meeshaas gebigaas oo kala ku gabaday kaas oo kale halkaas yaal ayaa ku gabaday halkan waa isgoyska X control afgooye ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho saakay saacado ka hor ayuu ka dhacay qarax ee loo adeegsaday gaari xamuul ah dadka ugu badan ee ku waxyeelobay qaraxan ayaa ah arday dhigata jaamacadaha dalka sidoo kale shacab badan ayaa halkan ku waxyeelobay oo ayagu ku ganacsanayay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa soo gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri maantay oo ah maalin sabti ah dabayaaqada bisha December waxa ka dhacay X control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyay isgoyska X control afgooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno dhaawacu waa 90 sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn ama tiro badan oo ardayda ah waxay ahayn jaamacadda Banaadir inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan waxaa laayay dadkaas dhagari qabayaasha ku soo duulay dalkeena Soomaaliya ma aha markii ugu horeeyay oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen mar kasta oo ay arkaan meel zaxmo ah ama bulshadu isugu badan tahay waxa ay ka caado dhigteen inay sidaas oo kale ay u laayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan ka magan galnay shartooda bulshada Soomaaliyeedna waan hubaa inay kala garteen cadawgooda iyo saaxiibkooda magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa ahayd mid amnigeedu aad loo adkeeyay muddooyinkii ugu dambeeyayna uusan ka dhicin qarax noocan oo kala ah qaraxani ayaana bedelay jawigii iyo xasiloonidii nabadda ee ay dhawaan Muqdisho ku jirtay
safiir ismaan cabdulle shabeelle TV muqdisho